waan ka guulaysanay TPLF waxa rajana ma leh rajada ma leh hada TPLF oo ay bomboniyo cadawgii aan aadnayna halkii loo baahnaa baan gaarsiinay oo halkii loo baahnaa baan gaarsiinay ilaa heer annaga aan loo baahnay baan gaarsiinay sidaas baan ugu nimid deegaankayaga ugu soo noqonay si nabadgelyo oo nabad qabna oo guul sidnaan u nimid shacabkayaga oo nagu faraxsan halkan oo xero ku taala deegaanka Dhagaxle ee gobolka Faafan ee deegaanka Soomaalida waxa lagu soo dhaweeyay ciidamada xoogga gaarka ee deegaanka Soomaalida dagaalka ugu la jiray deegaanada waqooyiga Itoobiya TPLF ciidamada ayaa markay ay soo gaadheen xarunta waxa lagu soo dhaweeyay heeso iyo dhaantooyin taliyaha ciidamada xoogga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida iyo hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida iyo mas'uuliyiin kale madax dhaqameed ayaa halkan ku soo dhaweeyay ciidamadaasi dib ugu soo laabtay deegaankooda Soomaalida Dr. Xuseen Qaasim hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka Soomaalida ayaa ciidanka halkaas kala dardaarmay isagoo uga mahad celiyay dagaalka ay galeen in agabkii oo inta hadda gidaash ku maqnaydeen idinku waajibaad ku maqnaydeen waxyaabo badan baa idin sii sugayo gaadiid baa idin yaallo waxyaabo badan oo kale oo aan gooni uga hadli doonaa idin yaalla garbaha idin buuxin doonaa ragga qaarkii geesnimo badan baa la muujiyey waxa ciidan uu naga mudan yahay ciidan waliba geesiyaal ah oo gaara waa laga helayaa idinkuna waajibaadkiin baad gudanaysaan hawshan waa intaasay ku eg tahay waa ciidan waxaad tihiin hawl ciidan soo gutay haddana hawl ciidan ay sugayso siduu sheegay taliyuhu waxaan leenahay soo dhawaada roobkii waa taxtiixaya barwaaqadaasina waa idinla socotay bashaashana deegaankiina waad ugu timaadeen iyo kalgacal waxaan nahay odayaashiinnii waxaan nahay aabbayaashiin waxaanu nahay kuwa aad dhiiggiinna iyo dhuuxiinna iyo naftiinnaba aad u hibayseen inaad ku difaacdaan kuwii baan nahay sharaftayadii baad ilaaliseen karaamadii shacbigeenna aad ilaaliseen geesinimadii dhaqanka aanu lahayn baad ilaaliseen halyeeye aan ku faannaad ahaydeen kuwii cadowga deegaankan dhabarka ka jebiyey baad ahaydeen mid la mida cadowga Itoobiya dhabarka ka jebiseen guulaystaan idin ilaahay dhammaantiin waxaad ogtihiin dhammaantiin siduu hoggaanku u sheegay cadow kasta oo isku daya inuu shacbigiinna aabbayowgiin hooyooyinkiin hablihiinna sharaftooda inay ku xadgudbaan isku dayay kuwii dhiiggooda horey ugu huray baad ahaydeen kuwii xuduudda dheer ee aan leenahay ka difaacay bay ahayd cid kasta oo isku dayday baad ahaydeen maanta waxaa cad in aan ku dhiiranayno ku faanayno cid kasta oo meel kasta joogto isku kaayadayda xoog difaaca inaan haysanno jiidda dagaalka markaad ku jirteen idinlamaanaan joogin laakiin waad garab joogno indhaha iyaga qaar ka mid ah saraakiisha ciidankaasi wadatay oo warbaahinta la hadlay ayaa guul ka sheegtay dagaalka ay la galeen TPLF marka muddo ayaan halkaa joognay waajibkiina looga diray un baan soo gudanay si sharaf iyo guul aan waan ku soo noqonnay cadawgii aan aadnayna halkii loo baahnaa baan gaarsiinay oo halkii loo baahnaa baan gaarsiinay ilaa heer annaga aan loo baahnay baan gaarsiinay sidaas baan ugu nimid deegaankayaga ugu soo noqonay si nabadgelyo oo nabad qabna oo guul sidnaan u nimid shacabkayaga oo nagu faraxsan waan ka guulaysanay TPLF waxa rajana ma leh rajada ma leh hada TPLF oo ay bomboniyo waxay noqon doontaa talaabada xigaysa ay waajib kasta oo dalka looga baahan yahay baan qabanaynaa annagu guud ahaan waxaan u tagnay dawladda deegaanka Soomaalida oo naloo diray cadawga macnihii Itoobiya ku soo duulay mataqaanay kulli dhammaan inaan magaram taqaanay ciidanka federaalka aan garabkiisa ahaano oo la jibinaan u tagnay tiina waan ku soo guulaysanay annagoo nabad ahana waan soo noqonnay si buuxina deegaanku maanta uu noo soo dhaweeyay de waajibna faran bay ahayd waxa weeye dalku waa dalkii uun dadkuna waa dadkii uun de waxa weeye ma garanaysaa cadawgii Itoobiya ku soo duulay inaan macnaheedu waxa weeye ka hortagno waa waajib masaarantay dhinac kasta marka waxa weeyaan say tahay baan shaqada u soo guulaysanay hadda wadankan joognay ahay dadkii joogay dad fiican aad noo soo dhaweeyay bay ahaayeen dadkan iyo deegaankan hadda ku soo noqonay si fiican bay noo soo dhaweeyeen waxa weeye assalaamu calaykum raxmatullah aad baan ugu guulaysanay 100% waxa weeye waa la soo afjaray waxa weeye wadankii ay haysteen iyo dadkii macnaheedu ra'yiga ay muslimka ahaa ay aad u gumaysanayeen waxa weeye waan ka dhax saaray waana ka fogeynay waxa weeye markaa
waajibkii waa soo gudano deegaanka ku soo laabana si fiican baa loo soo dhaweeyey luqmaan maxamed faarax MMTV deegaanka dhagaxle ee gobolka faafan ee deegaanka Soomaalida